السلام عليكم كسر دوادي يوتيوب channel كيجا ما أنتوا حندوني إن أنا نبرة عشر كسوة سيكل سيل أنيميا ونقول جلينا 10 كنا سيكل سيل أنيميا وحنون وحنا كنا an inherited abnormal hemoglobin وحنون هدراعة وحنا يحكي قلديين هيموغلوبينك وأوتوسومال ريسيسيف جين وحويان قاب سميتك أما قابك ويا الهيموغلوبينك يحكي قلديين هيموغلوبينك ومحي هيموغلوبينك وبروتين كل رنهير بلارسلك قادنا أكسجين كربون دايوكسيد أستعمال لغو يقانا signs and symptoms مثل أستعمال لغو يقانا sickle cell anemia وحكا ميدا fatigue إنو قفك دالو anemia إن قفك ديجيرو كو دعدا سببتو red blood cell oo waqtigiisa gaarin ayaa la burburiyaa qofku waxa laga dareemayaa dactylitis waana astaamaha ugu horeeyo oo laga dareemo qofka markuu 6 sano jiro ilaa xanuunka waa xanuun congenital ah oo ilmaha ku dhashaan qofka markuu 6 sano jiro waxa laga dareemayaa dactylitis oo ah in gacmaha ilwaha ay barraan waxa loo yaqaanaa foot hand syndrome lung and heart injuries in qofku dhaawac ka soo gaaro sanbabada iyo wadnaha frequent infections qofka infection inuu ku soo laabto waxa kale oo astaamaha kamid ah eye damage inuu dhaawac ku yimaado indhaha sababtoo dhiig tiro badan baa marmarka qaar jir ku noqon kara mise soo gali karo indhaha agaarka indhaha mise xididada indhaha waa ka gudbaynaa qaybta astaamaha waxaan u gudbaynaa types of sickle cell crisis waxa jira wax la yiraahdo sickle cell crisis oo ah xanuunka markuu gaaro meesha ugu darneed ama dhaawac uu keeni karo sickle cell crisis-ka waxaan u kala bixinaynaa 4 xabo sickle cell crisis-ka waxa kamid ah number 1 a plastic crisis معناها إن لسموين وايا blood cells إن لسموين وايا blood cells معناها إن red blood cell كل سموين وايا ويراده إن لسموين وايا blood cells كلا سيدي blood cells وحيالي كلا مركا و a plastic crisis إن red blood cell كل سموين وايا وحكى لو تروح له يقانا sequestration crisis معناها a pool of blood ديك ترى بدن pool of blood أيه وحقليها the spleen ama meesha loo yaqaan bariira kadibna waxa weeyaan dhibaato ay bariira u keen kada waxay keenaysaa wax loo yaqaan splenomegaly macnaha inay barto ama aad u weynaato the spleen ama bariira waxa kale oo gudbaynaa qaybta kale oo ah hemolytic crisis waxa weeyaan waxa la burburinayaa red blood cell-ka asagoo aan gaarin 120 maalmood asagoo aan gaarin taana qofku wuxuu ka qaadayaa anemia dhiig in qofkii HB level-ka ay noqoto wax ka yar 9 wax ka yar 6 ilaa 10 ma dhaafaba qofka HB-giis marka hemolytic crisis baa la yiraahdaa waana qayb kamid ah sickle cell crisis-ka waxa kale oo kamid ah wax loo yaqaan vaso-occlusive crisis macnaha in dhiig tiro badan oo xinjir ah dhiig inuu ku aruuro kuna xinjirooba qayb organ-saga jirka ama xubniyaasha jirka inuu ku xinjiroobo kadibna tissue perfusion wax loo yaqaan uu dhici waayo ama tissueski ama qaybihii jirka uu dhiig u tagi waayo kadibna qofkii oxygen deprived uu noqdo xubnahaas ay noqdaan kuwa oxygen heli waayo kadibna waxa laga qaadi karaa xataa wax loo yaqaan necrosis ama qayb unugyada jirka kamid ah inay dhintaan oo macnaha oxygen-ku gaari waayo sickle cell crisis waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa wax loo yaqaan complications xanuunka loo yaqaan sickle cell anemia muxuu isku bedeli karaa number 1 stroke in dhiigga uu maskaxda ku furmo ama qaybaha maskaxda uu gaari waayo dhiigga 2 wuxuu isku bedeli karaa pulmonary hypertension ama cadaadiska dhiigga ee tagaya sanbabada inuu aad u bato cadaadiska leg ulcers in qofkii ay lugaha booga ka soo baxaan way ay lugaha booga u soo bixi karayaan waxay ugu soo baxayaan because of the vaso-occlusive crisis in dhiigga lugaha uu tagayay uu xirmo in dhiig lagu tago xirmo kadibna uu dhici waayo tissue perfusion inuu dhici waayo ama oxygen-ka uu tagi waayo waxa kale oo complication waxa kamid ah deep venous thrombosis macnaha xididada lugaha ama xididada jirka ee superficial maha kuwa hoose xididada hoose ee jirka inuu ku xinjiroobo dhiig deep venous thrombosis marka qatarta ay leedahay clot-ka that blood clot can travel to the brain and cause stroke buu keeni karaa management maxaa lagu dabiibi karaa hydroxyuria waa daawo chemotherapeutic drug ah qofkan waxay u sameeysaa waxay ku badaysaa wax loo yaqaan hemoglobin F waxay diidaysaa in red blood cell-ku sickle shaped noqdo red blood cell waxa la rabaa inuu noqdo biconcave shape inuu noqdo
waxa kale oo lagu dabiibi karaa bone marrow transplant in qofka loo bedelo bone marrow lama bedeli karo mar walba bone marrow xitaa dadka family isku ah chanceska ay bone marrow ama dhuuxooda uu the same noqdo isku mid noqdo waa 15% chance marka mar walba lama helo qof lagaga bedelo bone marrow waana qaali aad bay qaali u tahay blood transfusion in qofka loo sameeyo blood transfusion red blood cells cusub loo geliyo daily folic acid in qofka maalin walba folic acid la siiyo si red blood cell loo sameeyo waxyaalaha la yaab kale waxay tahay qofka dhiigiisa bedelku uu ku badan lahaa red blood cell qaangaar ah qofka dhiigiisa waxa ku badan wax loo yaqaan reticulocytes waa red blood cell aan qaangaar ahayn red blood cell-ka markuu circulation ka soo gala wuxuu ku qaangaaraa ilaa 7 maalmood buu qaangaar ku noqdaa marka dabiibka kale waxa kamid ah treat infections qofka ka daaweeyo infectionka waxa la siinayaa oral penicillin baa la siin karayaa oo joogta hadii la doono aggressively treat bacterial infections infection ka daaweey waxa kale oo qofka lagu dabiibi karaa pneumococcal and meningococcal vaccine talaal in la talaalo oo laga talaalo la siiyo talaal meningococcal iyo pneumococcal and meningococcal vaccine waxa kale oo la siinayaa hepatitis B vaccine cashirkeena maanta intaas uu ku egyahay please subscribe to my YouTube channel and share with your friends saxaabtan la wadaag soo dhawaada please